السلام عليكم كل وعن صاحبي halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada qaybtii saddexaad ee qisadii Maxamuud Yare balse intaan u guda galin qisadeena fadlan muuqaalka like saar haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir oo subscribe taabo furo gambalelka si aad u hesho muuqaaladeena isla markaa aynu soo gelino xaajigu wuxuu yiri waxaan u sheegayaa xaajiyada in si jiritaanka qoyskani ay ku jirto gacanteeda maanta kadibna haddii ay wiilkani dil u geysato mas'uuliyadda burburka reerka iyada ayaa qaadaysa wax walba ay aniga ugu sameeyay waan u dulqaatay laakiin wiilkani kuma heshiin doono garaacista noocaani ah in ay mar dambe u geysato xaajiyada aabaheed ayaa gooni ula baxay wuxuuna u sheegay qof arintani u dulqaadan karta in aysan jirin waxay ku kacdayna ay tahay wax lala yaabo si kastaba ha ahaatee qaladkaasi dhacay in uusan soo laabanayn balse aysan dacwad noocaani ah mar dambe u imaan wayna aqbashay xaaji Malyuuna waxaa maslaxad aan uurka jirin habeenkii ku sameysay xaaji Maxamed waxaana u bilaabatay isbuuc kulkulin ah balse aan uurka jirin waa sheeko cusub oo xaajiga laga gadayo muddo kadib Maxamuud iyo walaalihiis labadii yaryara waxaa la geeyay iskuul cadaadiskii guriga waa u saaran yahay balse xaajigu waa qof caqli badan Maxamuud wuxuu geeyay maqaaxi ay isgaranayaan wuxuuna u sheegay in buug loo furo bishiina isaga laga soo doono laakiin ma ahin jacayl aabe kaliya mid ku filan waayo garab xataa kama helin walaalihiis xaajiyada warkeeda iska daa muddo kadib waxaa soo dhawaaday xilligii imtixaanka la diyaarin lahaa xaajiyada caruurteeda way garab taagan tahay labadii waaweyn ayaa amar lagu siiyay in ay caawiyaan walaalahood Maxamuud se lama siinin waqti uu imtixaan ku diyaariyay wax walba oo loo baahdo isaga ayaa loo diri jiray sidoo kale waxaa lagu amri jiray shaqada guriga in uu qabto nooc walba oo ay tahay marka laga reebo cunto karinta waa cadaadis aad u weyn oo waxaa la dagaalamaya horumarkiisa waxay rabtaa in ay cadeyso inuusan faham lahayn kuna dhaco imtixaanka sidoo kale waxaas lagu sameeyay haddii uu aabo u sheego in la gowrici doono ayaa looga hanjabay xaajigu markuu soo dhow yahay ayaa buugta aqriso lagu dhahaa oo walaalaha la soo ag fariisiya ayadoo la matalayo in caruurta ay wax wada aqrisanayaan markuu yimaado xaajigu wuxuu wareystaa caruurta dhammaan sida ay wax u diyaariyeen isaga oo muhiimadiisu tahay in uu Maxamuud wax ka ogaado isagana wuxuu u sheegaa maanta oo dhan in uu wax diyaarinayay ilaa waa hadalkii loo aqriyay intuusan aabihiis imaanin waxaa la gaaray imtixaankii iskuulka waa la wada galay si nabad ah ayuuna ugu dhamaaday xaaji Malyuuna aad ayay u faraxsan tahay siday ugu dadaashay caruurteeda waxay dareemaysaa in ay kaalin fiican galayaan waxayna u ballan qaaday hadiyado haddii ay labadooda Maxamuud ka saramaraan buundooyinka waxaa la soo dhajiyay imtixaankii iskuulka qof walba iyo kaalintii uu galay ardaydii oo dhan ayaa timi qof walba wuxuu baarayaa magaciisa iyo kaalinta uu ku jiro ardaydii oo dhan way yimaadeen qayb ayaa faraxsan halka qaybta kale ay ilmeynayaan waxaa u dambeeyay oo yimid Maxamuud macallimiintii iyo ardaydii oo dhan ayaa wada fiirinayaan mid ka mid ah macallimiinta ayaa u yeeray weydiiyayna waxa uu ku soo daahay wuxuu u sheegay in maamada ay shaqo u dirtay uuna u soo dhameeyay kadibna uu soo baxay kadib Maxamuud wuxuu u soo dhaqaaqay dhankii warqadaha natiijooyinka la soo dhajiyay markuu arkay indhihiisa ilin ayaa ka daadatay oo wuxuu rumaysan waayay natiijada meesha ku qoran aad ayuu u sii ilmeeyay farxad darteed waayo waa ardayga ugu darajo sareeya iskuulka oo dhan arday badan ayay Maxamuud isla keeneen buundooyinka balse akhlaaq ayuu ugu kormaray oo marnaba arday iyo macallin toona isma qaban xaaji Maxamed qudhiisa wuxuu soo wacay macallimiintii waana loo sheegay in wiilkiisu noqday ardayga ugu sareeya iskuulka waxa uu diyaariyay hadiyado qaali ah isaga oo ku sii dhiirigelinayo Maxamuud doonayana in uu horay u sii socdo guriga ayuu yimid Maxamuud mise waxaa taagan aabi iyo walaalihiis mar qura ayay sacab ku dhufteen oo ugu hambalyeeyeen guusha uu soo gaaray Maxamuud mar qura ayaa xaada oo dhan istaagtay farxadii runta ahayd ayuu dareemay waxaa la siiyay hadiyadii loogu talagalay aad ayuu u sii farxay xaajiyadana dadaalkeedii xaasidnimada ahaa wuxuu noqday hal bacaad lagu lisay waxaa la yaab ku ah sida uu wiilkani heerkani ku gaaray Maxamuud xaaladda si dhab ah ayay ugu sii adkaatay waayo walaalihii labadii waaweynaa hore ayaa nacayb loogu abuuray kuwa yaryaraana waa kuwaani Maxamuud imtixaanka inay ka kormaraan iska daayay xitaa gaari kari waayay iyagana sidaasii ku waayay hadiyadii hooyadood ay ugu tala gashay xaaji Maxamed xaaladda in ay wiilka ku adag tahay wuu dareemaa balse wuxuu sameeyo malahan oo wuxuu ku fikirayaa haddii uu furo xaaji Malyuun hal wiil oo hooyadii dhimatay ayaa xaaladda nolosha sidaani ugu adkaatay haddii 5 caruur ah oo gabar ku jirta la furo hooyadood sidee noqon karaan waa xaalad u baahan in aad loogu fikiro dhanka kale Maxamuud waxaa haysta waa nacayb kale oo guriga oo dhami ah marka laga reebo aabihiis waxay nolosha iska adkaato Maxamuud sidaasi ayuu dugsi dhexe ugu soo baxay walaalihiisna way ka hareen labadii waaweynaa ee caruurta xaajiyada dugsi sare ayay ka baxeen
in ay jaamacad bilaabaan way diideen oo waxa ay barteen qaad iyo sigaar. Noloshooda waxay ku mashquuliyeen cunida balwadaasi, cid ka warqabtana ma jirto. Waa imtixaanka adduunka xaajiyada iyadoo gabadha Maxamuud la eeg dabadeed wax caruur ah ma dhalin kumana quus qaadan. Labada caruur ee ilmaheeda ugu weyna waxay cunaan qaad oo kama warqabto. Xaajiga markaani Maxamuud wuxuu ka dhigtay gacan yar markuu iskuulka ka yimaado way isla qadeeyaan. Galabtiina shaqada ayay isku raacaan, masjidka ayuu ku xiray si casharo badan oo diini ah uu ugula socdo. Maxamuud awalba deganaan iyo fahmo ayuu lahaa, si fiican ayuu ugu xirmay masjidka. Jamaacadii oo dhan ayaa jeclaatay. Wuxuu ka helay farxad, sheeko iyo asxaab fara badan oo nolosha hore ugu soo helin. Waqti wanaagsan ayuu ku jiraa. Xaajiyada waxay weysay waqti ay Maxamuud cadaadis ku saarto. waa mar uu iskuulka jiro iyo mar uu aabihiis la maqan yahay. La soo qaybteegta hadduu rabbi dhaho daawad ha ilownin inaad muuqaalka laag dhahdo. Haddii aad channelka cusub tahay ku soo biir oo subscribe taabo. Tan intaan kulmayna qaybta kale nabadgelyo.